howlgallo qorshaysan ay ka sameeyeen xaafadaha degmada Kaaraan ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya ayay ku soo qabteen rag saddexdii maalin aynu soo dhaafnay dhibaatooyin isugu jira dil iyo dhac shacabka degmadaasi uu geysanayay ciidamada dowladda ee howlgalka fuliyay ayaa isugu jiray nabad sugid iyo booliska waxaana ragga gacanta ay ku soo dhigeen ay ka koobnaayeen 7 ruux waxaana qaarkood ay wateen qoryaha fudud iyadoo ay ku libisnaayeen dariiska ciidamada dowladda qaarkood waxaana wararka qaarna ay sheegayaan inay ka tirsan yihiin ciidamada dowladda ragga ay soo qabteen ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay timid soo qabashadooda kadib markii shacabka degmada Kaaraan ay dibadbaxyo halkan ka sameeyeen taas oo ay ugu cabanayeen sida ay ula dhaqmeen ciidamada waxaana xusuus mudan in rag la soo qabtay ay halkan ku dileen degmada Kaaraan dad kala duwan oo isugu jiray shacab iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan dowladda waxaana arintaas u xaqiijiyay warbaahinta gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga iyo siyaasadda ee degmada Kaaraan Saalax isbuucan kaliya waxa dhimatay inta la og yahay 4 qofood dhimatay isbuucan kaliya waxa dhimatay ma aragtay 4 qofood dhaawacana waa 6 qofood dhaawaca lahu waa 6 qofood qof waa kufsi shanta kale waa dhaawac oo rasaas ah iyadoo gaari mid laga dhacayo israsaaseen suuq dhaxdiisa iyadoo la israsaaseenayo sida arkaysaan ma arkanoon muxuu ahaa shalay u dambeysay qofka idin sheegayna marka waxa soo dhan waxa waa isbuucan dhaxdiisa waaye way xoogeysteen goob waxay ka dhigan rabaan degmadan goob waxay ka dhigteen waxa ay soo dhacaan ay la yimaadaan waxay caadaysteen inay degmadan dhaxdeedana waxay doonaan ka dhax sameeyaan howlgalka lagu soo qabtay raggan ayaa yimid kadib markii shacabka degmadaasi ay isku soo baxeen sida uu sheegay gudoomiyaha degmada Kaaraan Cabdifitaax Xaaji Nuur oo warbaahinta kula hadlay gudaha saldhigga degmada Kaaraan maanta bulshada degmada Kaaraan gaar ahaan qaybta ku ganacsada suuqa Kaaraan oo cabasho ah ayaa banaanbax nabadgelyo sameeyay kuwaas oo ka cabanayay dhibaato ay maalmahan ku hayeen maleeshiyaad ku hubaysan qoryo kuwaas oo isku wato tuuto iyo macawisyo oo dhibaato fara badan ku hay bulshada waxaad ka warqabtaan maalmihii la soo dhaafay falal dil ah oo ka dhacay ay geysteen dadkaasi magacyadoodii iyo meelaha ay degan yihiin tuti waxaan la wadaagnay hay'adaha amniga booliska iyo nabad sugidda saakay gurmad adagana soo gaaray oo ka mid yihiin qaybta guud ee booliska iyo qaybta guud ee nabad sugidda gobolka Banaadir sidoo kale waxaan soo gaaray afhayeenka wasaaradda amniga iyo saraakiil kale howlgala bilowday dadkii ayaga bilaabay inay dhaqaaqaan tuugadii ugu waaweyneed ilaa 5 la qabtay ninkii ugu khatarsanay oo mashiidi ah oo dilal 2 dil ka geysay degmada oo dad xabadeeyay oo fakad ahay oo waaran u jaraya gacanta lagu dhigay dhamaantoodna sharciga la horgeey doona hadii Ilaahay yiraaho laga bilaabana maanta tuug gobolkiisa waa dhacay hay'adaha amnigana maanta doorkooda waa ay qaateen shaqo fiican loo qabtay bulshadii afhayeenka wasaaradda amniga ee xukuumadda Soomaaliya Cabdixasiis Xildhibaan oo isna warbaahinta la hadlay ayaa sheegaya in wasaaradda amniga cadaaladda ay horgeyn doonto eedeysanayaasha la soo qabtay taliyayaasha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gaar ahaan taliska ciidanka nabad sugidda Soomaaliya iyo booliska oo goobjoog ka ah halkan waa u sheegnay in dawladda Soomaaliya aysan u dul qaadan doonin dadka haysta ama ku labista dareyska ciidamada ee shacbiga waxyeelada u geysanaya cid kasta oo la soo qabtana waxaan u xaqiijinaynaa nabadoonkii ka daba yimaada inaan isagana xabsiga u taxaabi doonno cid kasta oo ay ku cadaato inay qayb ka tahay amni darrada iyo xasilooni darrada iyo amni darrada ka jirta degmada Kaaraan cadaaladdan horgeynayna Maxamed Yaxya Jiinow telefishinka Saab